الحمد لله. عربت وحيدهان رب صدفة خير من 1000 ميعاد. si oo kedis laisku arko ayaa mar waxay ka khayr badan tahay yacni kun ballama ka horeeyey wax baan samaynayna soo imaanayna la dhahayo si kedis laisku arko wax weyn la qabtay ayaa ka khayr badan. maanta kelmadeyda saas oo kale u yara dhowdahayo gaarigaan saaranahay meel ma fadhiyo laakiin qisan dhegaystay aaday ii saamaysay. waxaan rajaynaa qofkii insha allahu tacaala qisadan dhammaysto oo dhegaysto in cudur aad u xun oo dadka ku dhex faafay go'aan ka gaari doono. wuxuu yidhi qaatala allahu alxasada maa acdalah bada'a bisaaxibihi faqatalah. waan fasiri doonaa, gadaalaan ka fasiraynaa. nin herbaadi ah shaacirna ah ayaa wuxuu u soo martiyey dowlad dhisan. waxaa meesha ka cad marka ninkii martida ahaa herbaadiyaha ahaa iyo ninkii xaakimka ahaa ayaa isfahmay. mid wasiir ah ayaa marka xasad qalbigiisa galay inuu ka shaqeeyo labadan qof oo isfahmay inay iskhilaafaan. wasiirkii cazuumuu sameeyey, ninkii herbaadiyo cazuumo u sameeyey. basal iyo tuun ayuu ka buuxiyey raashinkii, si fiican buu u dherjiyey. markaasuu ku yidhi nakeen xaakimkan soo booqanaynay. waa la baxay. boqorkii marka loo geli rabo ama xaakimkii intaan loo gelin wuxuu yidhi wasiirka iyarakaadi isug anaa gelaayo oo kuu imaana. intaas yaruu raba inuu ka faa'iidaysto wax isku dirdiro. wuxuu u tagay marka xaakimkii wuxuu ku yidhi ninkaad ammaanaysay oo isfahanteen oo herbaadi ahaa ayaa ila jiro, laakiin waran kaaga wadaa. warkiisana wuxuu yahay ninkaasi ceebuu kaa sheegay, wuu kaa faanaa. wuxuu yidhi khaasatan boqorka yacni afkiisa riixada ka soo baxayso looma adkaysan karo, wax noocaasuu ku dhah. dhaqankiisaana ka dareemi doontaa uu dhahay. kadib waayo ii keenuu dhah. marka wasiirkii uu soo baxay, ninkii reer baadiyuu kaxeeyey, wuxuu u geliyey boqorkii ama xaakimkii. ninka reer baadiyaha ahaa basal iyo tuun baa laga soo buuxiyeyoo afkiisa riixada ka baxaysuu u diidan yahay in ninkan odayga ah oo madaxda ah inuu xogoo dhibsado. asagoo marka gacantiisa afka ku hayo oo qof loona arkaayo qof wax ku soo urayaan oo diidan in warkaas uu soo gaaro ayuu u fahmaa qofka kale, waayo waraa ka horeeyey. ninkan ixtiraamay ka tahay oo odaygan boqorka yuusan kugu dhibtoonin oo dhib yuusan dareemin uu leeyahay, laakiin waa laga shaqeeyey. arrimo noocaasna way dhacaan badanaa. almuhim boqorkii markuu arkay ninkaas inuu wixii la sheegayey ay rasmi ay yihiin, maadaama uu afkiisa ka qabsanayo oo uu yaro dhibsanayo. boqorada ay madaxdood garanaysiine awood zaa'id ay sheegtaanoo warqad yaruu soo qoray oo ah ninka warqadda wado hadduu ku imaado kow ka sii. qof aad la tashanaysa ma laha. maxkamad almustacjala loo diray. meelo qaaran dee qaraar malkiya jir mogta, maxkama mustacjala u diray. marka wuxuu yidhi haddii ninku qofka warqaddan la imaadaba kow xal kale ma jiro. subxaan allah. qisadaa mar kalena waa maqlay, laakiin maanta say ii saamaysay iima saamayn. almuhim boqorkii ninkii warqaddii soo siiyey wuxuu ku yidhi marka odaygii herbaadiya markuu warqadda u dhiibayo wuxuu yidhi warqaddan hebel hebel u gey. markaad u geyso ii soo noqoto hadiyad qaali ah oo lacag iyo waxbuu u sheegay ayaan ku siinaa. xaadir waay, mana furi kartid ilaa aad ka geyso. ninka loo wado baa arkaya adina aad furtid waa mamnuuc, qof kalena ma furi karo. xaadir boqor iska daacad lilaahi wey.
miskiinkan waxba kama warqabo warqadii soo qaaday asagoo warqadiisa wato wasiirkii aba banaanka ku sugayo waayo wasiirka wuxuu u maleynayay markaasba la xiraayo oo warkiisa markaa meesha ku dhammaanayo ninkii lama xirano warqad yarna waa loo soo dhiibay warqadda meelblaayi geeya la dhahay ballanqaad kale loo sameeyey inuu soo noqdo oo dhaqaale la siiyo sheekadii meesha ka sii daran soo maaha wasiirkii damaca galay wuxuu la hadlay ninkii reer baadiya wuxuu ku yidhi warniga meesha anaa ku keenay saaxiibaan nahay waxbaa isdhibin adoon soona noqonin waxaaga ku imaanayaan lacagtan anaa kaaga soo qaadayo warqadanna ammaano wey meesha geey la dhahay anaa geenaya bliis ani ii dhiib nin qalbi fiican oo waxba aanan ku jirin soomaa baaraka allahu fiik haddaaba mas-uuliyadda naga geenaysid meeshii loogu talagalay insha allah naga geey caawa is arkaynaa biidni illah ayib wasiirkii warqaddii u qaaday suu u socday meeshii loogu talagalay in lagu furo loogu talagalay ayuu uu geeyey oo ah maxkamadda almustacjala qof wax dilid kala yaqaano wasiir iyo waxba aanan garanayn dabcan wasaaro badan oo qalad sameeyeyna meesha يعني إن لقوا عني إسكمه قطو والقد يلو جيد نكى هدو فري نين كان دلة كقرن بس كو عد ولا تشتمه بجرتب أو وزير ساس بكون مقيم مسكين كده البديه وزير كي ورك السجوية بقر كي وحسجوية وزير كي إنه صار نقضوا ده نكى ولا والد دري أخبار مجرته نكى حاكم كهايا مركز تتبع سميوه ورآوي نينكي وزيرك ولا لا يا ايامها وركي سمهين نينكو اي كينا يرباديها آوي وو جوغا ميلها بس كباشالا وياي مقالدان كو اركين وو جوغا ودهي اللي ايو يري كاس لو يري ورقد سو كوما ديبن واي واي ديبتو داي آوي ورقدي وزيركي احترام يقول هابا ايغا قادو wuxuu igu yiri diana waxaan soo dhameynay amaanada meeshii loogu talagalay geenay marka waa iga raali noqo asaan u dhiibay خلاص ninkii markii madaxda ahaa odayga ahaa wuxuu ogaaday ninkan wasiirka inuu horta meel uu san ka soo noqonin uu ku jiro yani waa la dilay xuquuqda inta la eg wasiirku ku dhacday maxaa sababay marka su'aalu ku celi wuxuu ku yiri adiga maalinta la iika keenay afka ayaad gacanta saaranaysay maana ay dhibsanaysay oo iga faanaysay maya macaalim madaxweyne ama boqor maya saas ma aha ilaaha ila og intaas waa ka fiican tahay waa ka fog xumaantaas waa ka nasahan tahay laakiin wasiirka basal iyo toon iyo alaab oo cajiib igu casuumo marka afkayga riixada ka soo bixaysan ka dhowraayay saad marka u dhibtoonin baa gacanta u saaro dhaafka laa xawla walaa quwwata illaa billah halkaasuu yidhi yani intaas wax ka duwanaa la ii sheegay wasiirka wuxuu yidhi ninkan adugu kuga maqan yahay wuu ku caynooyaa magaalada warkaaga ku faafiyey anigana warqadan kuu dhiibay dee in lagaa takhallusay ahayd laakiin wuxuu yidhi wasiirkii ayaa ku gacan galay ninkii herbaadi ahaa marka shicirka marka ayuu tiri wuxuu yidhi qaatala allaahu alxasada ma acdalah allah xasadka cadaalad badanaa ilaahay ha baabi'iye bada'a bisaaxibihi faqatala oo saaxiibkiisuu ku bilaabay wuuna dilay idan meesha maxaa kaga soo baxay marka qof kastoo xaasid ah intuusan kan uu xasdaayo uusan dhibaatayn asaa isdhibaateeye ogaada tawfiiq allah na waafajiyo asalaamu calaykum waraxmat ullah